إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة. caadani illahu minha wa iyaakum. soo dhawaada walaalayaal dhammaantiin, xaawo xasan iyo dhammaan walaalaha kale ee ku jira bejka diinteena waa nasteexo iyo maaragtay online-ka, iyo walaalaha kale gabdhaha banaatulmuxsinaat ilaa 650 hadda ay ku jiraan qolka reer u k walilahi alxamdu, iyo wixii kale ee yurub. hadda kole reer maraykan waa xilli dambe waa ka baxayaan. soo dhawaada walaalayaal, ilaha idin barakeeyo dhammaantiin. waa mar kale iyo duruusta aynu ku kulmi jiray maanta kale arbacaa aynu ka jawaabi jiray su-aalaha faraha badan leh ee kasoo aroora walaalaha. su-aalo aada u fara badan baan hayaa walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. wixii aan awoodno ilaa yacnihii kowda rubcla saacad meelahaas, ama saacad iyo 10 daqiiqo intii aan maxaan ku dhahdaa maaragtay awoodno, walilahi alxamdu ayaan ka jawaabi doonaa. soo dhawaada dhammaantiin walaalayaal. cabdullaahi yuusuf dhammaan soo dhawaada maaragtay reer boorama, ilahay idin barakeeyo. ilaahay baa inoo sakhiray adduunka waxyaabaha mucjizaadka ah oo hadda yacni dhegaha bahalka igu jira iyo bahalka indhahayga. waxyaabaha ilaahay inoogu sakhiray waxaa ka mid ah dadka ardayda mararka qaarkood online-ka noqotaa 5 salaadoodba way aadaan. qaar bay duhur u tahay, qaar bay casar u tahay, qaar bay maqrib u tahay, qaar bay cisho u tahay, qaar bay salaad subax u tahay. walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. waa wax ilaahay lagu mahadiyo. rasuulku mucjizadii diintiisa wuxuu rasuulku yidhi ma jirta buu yihi rasuulku maaratay in allaha zaawa liya ard, ilaahay dhulka oo dhan buu iwada tusay buu yihi sida telefishinka waqtiguu nebigu noolaa. oo ma jirta buu yihi dhulka lay tusay caalamka oo dhan guri ama dhoobo ah, ama ka samaysan dhogor iyo harag, ama ka samaysan ciid, ama ka samaysan, ilaa diintaydu way geli doontaa buu yihi rasuulku sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam. lidaalika waxaasoo technolojiya oo xuduudaha goysay, xaqiina way la goynaysaa, baadilkiina way la goynaysaa. dad baa xuduudaha lasoo gebagebeeyey, waxay la gelaysaa gaalnimo iyo xumaan iyo inay naarta ku galaan. dadna xuduudaha lasoo gebagebeeyey iyo adduunka isgaadhaya waxay la gelayaan khayr iyo wanaag iyo kelimada xaqa ah inay meelba gaadho. allahu akbar. lidaalika wax ilaahay lagu mahadiyo in meel walba inagoo joogna aynu iska soo gaadhayno, oo ama telefon isku gaadhayno, ama television isku gaadhayno, ama internet isku gaadhayno, ama live stream isku gaadhayno. su-aasha ugu horeysa gabar maaratay naciima waxay soo weydiinaysaa su-aal lasoo weydiiyey bejka, oo ay sheekhu habeenadan dhowr maaratay wuu maqnaa sheekhii bejka khaasatan su-aalihiis ka jawaabi jiray. anigu inta badan su-aalaha waxaan ka jawaabaa caamka iyo su-aalaha kasoo aroora qolka banaatulmuxsinaat. marka su-aashan waxay leedahay wiil soomaaliya wuxuu leeyahay italian nimi, xaafad baanu degannahay, meel baan shaaha ka cabnaa. meeshaasna waxa weeyaan aan shaaha ka cabno waa meel khamro lagu cabo. annagu shaahaygaan ka cabnaa, kabdabna waa iskaga tagnaa. sidee bay arrintaasi noqonaysaa ayuu sheekh maaratay wiilku leeyahay. asalku waxa weeyaan rasuulka sala allahu calayhi wasalam meel khamro lagu cabayo, ama doofaar lagu cunayo, ama naaga qaaqaawanay joogaan oo munkar uu ku jiro, waxaa loo geli karaa oo qura, waxaa loo geli karaa oo qura haddii arrin daruuro ah. qof baa dhiig baxaya, dhiiggii baa la doonaya in la joojiyo, dhakhtar baa jooga, yacni wax nafta lagu badbaadinayo. cadow baad ka baqatay, dadkii doofaarka cunayay ama khamrada cabayay ama qaaqaawanaa bay kugu kaliftay naftaadii inay badbaadiyaan. ama qof baa kooma galay, sonkor yar baa loo baahan yahay carabka in loo mariyo. meeshii khamrada lagu cabayey ama lagu sinaysanayey, ama maaratay dadka qaawani joogeen, ama xumaantada lagu hayay, baad sonkortii uga baahatay si qofkani u badbaado koomada gala ee carabka la doonaya sonkorta yar in loo mariyo. umuuraha noocaas oo kalea ee idiraariga ah, wax daruuro ah oo aan laga maarmi karin, oo madarada iyo munkarka meesha lagu hayo daruuro ka weyn
meel khamre lagu cabayo ama xumaan lagu hayo haddii daruuradu ay kugu kalifto sida qofku marka baktiga loo xalaaleeyey oo kale ama khamrada loo xalaaleeyey ila nafti baa ka baxaysa ama bakti loo xalaaleeyey ama doofaar loo xalaaleeyey daruuro noocaas oo kale ay hadday kugu kalifto waad geli kartaa meeshaa baarkaa khamrada leanna daruura kugu kaliftay ama haddaanay daruura kugu kalifin oo ay tahay macnaha waxoogaa shaahaan u baahnay shaah gurigaa ku karso marka laa yajuus inaad shaah ama faanto ama kooke aad tidhaahdo baar khamre lagu cabayo oo ilaahay lacnadiisa kusoo degayso oo haddaad gasho inaad kasoo bixi doonto anaad war u haynin inaad kasoo bixi doonto miyaad war haysaa maya ma war haysid sheekh shuyuukhdeyda ka mid a oo dhintay ilahay naxariista noo siiya ayaa wuxuu cabi jiray wuxuu cuni jiray qaadku aada cuni jiray qaadka ayuu cuni jiray qaadkiibuu ka toobadkaan marka wuxuu ihi berigaan yaraa maadaama aan jeclaa waa dadkii etoobiya diinta kusoo bartay ee qaadkaba waxay u haysteen in awliyadu cunto oo wax xalaala bay u haysan jireen wuxuu ihi waagii qaadkii baan ka toobad keenay buui marka qaadkii wuxuu ihi maalintaa uu ila hadlayay hadda sheekh wuu dhintay alla naxariiste 50 sano mise 60 sano qaad maan cunin buuri haddana qof hadduu yidhaahdo qaad meel yaallay ii dhiib nin baa wuxuu ku yihi anagoo baabuur shirkii saaran ayaa nin baa wuxuu ihi qaadkaa sheekha u ii dhiib marka sheekhaas tusaalahaas u keenay wuxuu yidhi 60 sane ee aanan qaadka cunin ma taabto buuhi leanna waxaan ogahay buuhi haddaan taabto inaan cunayo leanna udgoonkiisu makalkaa u yaallo wuxuu igu soo urayaa buuhi udgoon leanna jidhkaygaa la qabsaday buuhi berigaan yaraa odaygaas marka dhowristeetan jir buu ahaa anoo 20 sano oo dhodhowaan cunayay buuhi anoo yar oo xerowa oo gelinka hore iyo gelinka dambeba aan maarata ku xadraynayay oon islahaa ilaahay ugu dhawow oon islahaa jannadaba qaadkaa kaa xiga marka dhiiggaygii buu galay buuhi markaan ka toobad keenayna hadda ma taabta buuhi leanna haddaan taabto maxaan ka garanayaa buuhi inaan cuni doono marka wiilkan lee meesha khamra lagu cabayaayo naaga qaawan baa jooga oo doofaar baa lagu cunaya shaahna waanu dooranayaa yaa ku ogeysiiyey haddaad gasho inaad kasoo bixi doonto kan khamrada cabaya iyo gabadhan qaawan iyo zinada iyo xumaanta meesha ka socotaa miyaad u malaynaysaa iyaga laftoodu imika hadday xaqa garan lahaayeen intaad garanaysa inay ku jiri lahaayeen nacuudu billah ibliis baa ayaa dawaqiyey lidaalika waa maxalul fitna waa meel fitno iyo xumaani ka socoto marka shaydaanku inuu ku geliyo buu kuhaa meesha shaah u doon olready uu kaa guulaystay waxaanu doonayaa inuu maalinta dambe uu caadi ku dhahdo maalinta ugu horreysa shaahaad ka cabto biya kooke ka cabto maalin dambe red bull ka cabto qaar iska barataan warniyo khamrinaha cabina nala soo fadhiiso kadibna waddada yari waddada weyn bay kugu ridaa lidaalika macsida lama ogola ilahay qur-aanka wuxuu ihi tacaawanu cala albiri waltaqwa walaa tacaawanu cala alithmi waalcudwaan wanaaggaa laysu kaashada xumaanta laysuma kaashado ilahay aayad kale wuxuu yidhi waidaa ra'ayta aladiina yakhuuduuna fii aayaatina haddaad aragto dad aayaadka iyaga ku ciyaaraya maaratay fa acrid canhum iskaga teg baa la yidhi xataa yakhuuduu fii xadiid kayri ilaa xumaantaa ay ka tagaan hala fadhiisanoo hala joogin waimaa yunsiyanaka shaydaanu shaydaankaa ku xasuusi ayaa ku ilowsiiyey deedna adoo dhex fadhiyin baad saragtay falaa taqcud bacda dikraa maca alqowmi adaalimiin markaad xasuusato dadka daalimiinta ee xumaanta ku jira la qasan xumaanta lidalika haddii meel qabiil lagaga sheekeynayo culimada lagu caayo diinta wax lagu yeelayo khayr darro lagu hayo wanaag amar haddaad awoodi karo iskaa kac ka hijarood xumaanta leanna shaydaanku haddii ciqaab soo dego waa maaratay waa lagula ciqaabaya nacuudu billahi dalik waqad maaratay nazla calaykum fi lkitaabi maaratay an idaa samictum maaratay aayaati illahi yukfaru biha wa yustahza'u biha buu ilah yidhi ilahay kitaabkiisa wuxuu kusoo dejiyey haddaad maqashaan aayaadki ilahay oo laga gaaloobayo ama lagu kufreeyo ama lagu ciyaarayo falaa taqcuduu mahum xataa yaquuduu fi xadiisi hayr hala fadhiina dadkaasi ilaahay warka bedelaan inakum idan mithlahum haddaa fadhiisataan meeshay fadhiyeen iyo qurankay walaaqanayeen la mid baa tihin ina allaha jaamicu lmunaafiqiina waalkaafiriina fii jahannama jamiica ilahay maalinta qiyaame gaalada iyo kuwa munaafiqiinta ee islaamkooda intay ka tanaasulaan xumaantada u banbaxa meesha xumaantada lagu hayana shaydaanku uu jeclaysiiyo iyaga iyo maaratay munaafiq buu noqonaya iyagiyo gaalada naarta jahanama lagu soo jamcinaya ina allaha jaamic almunaafiqiina waalkaafiriina fi jahannama jamiica nacuudu billah aayad kale waidaa samicuu laqwa acraduu canhu muminiintu markay xumaanta maqlaan way ka jeesanayaan waqaaluu lana acmalna walakum acmaalakum salaamu calaykum laa nabtaqi ljaahiliin bay odhanayaan suuratu qasas marka waxaa laga rabaa oo kale oo axaadiista rasuulka kusoo arortay sala allahu alayhi wasalam in
qofka maxaan ku dhahdaa muuminka ah aan loo ogolayn marnaba aan loo ogolayn inuu fadhiisto maa-ido iyo meel khamrada lagu cabayo, nacuudu billahi tabaaraka wa tacaala. meel khamrada lagu cabayo in qofka muuminkii uu fadhiisto lama ogola, nacuudu billah. axaadiis waxaa soo aroortay aada iyo aad nahyigoodu u daran yahay. dadka maaragtay ilaahay aanu eegin ee la hadlin ee aanu dahirin waxaa ka mid ah dadka nacuudu billahi maaratay fadhiista mawaa-id ama meel khamro lagu fuudayo, nacuudu billah. waxay majaalista meelaha ugu xun ee munkarkaabay ka mid tahay. marka waxaan leenahay su-aashaa koowaad, wiilkaas shaaha gurigaa ku karso, shaah haw doonan meel khamro lagu fuudayo, ilaahayna ka cabso, ilaahayna tii hore uga toobadkeen. masaladaasina masalo daruuri ah maaha, masalo daruuri ah oo naftu kaaga baxayso maaha. hadday naftu kaaga baxayso waa lagu ogoli, haddii naftu kaaga baxayso waa lagu ogoli. qof baa saxday, halkan baa cunaha isu taageen, biyaa loo baahan yahay maaratay in cunihiisa lagu furo, biyihiina nin khamri haya ama meeshii xaanuudkii khamriga lagu cabeeya yaalaan, intaad gasho biyaa waad kala soo carari kartaa. haddaad biyo wada xataa khamriga intaad kala soo carto qofka afka waad ugu qaban kartaa si cunaha loo furo oo aad u badbaadiso. marka daruuro noocaas waad u geli kartaa. laakiin shaah baan kasoo cabaya waxoogaayo maaratay socialization baan tegaya, meel khamro lagu cabayo ama xumaan ilaahay lagu hayo, cadhadii ilaahay soo degayso, waa daanjar, lama ogola, waa xaraam, walaa yajuus. masalada labaad maxaan ku dhahdaa na soo weydiisay waxaa ka mid ah, nin baa waxay leedahay gabar baa waxay tiri ninkaygu ayaa wuxuu furay 2 dalqadood. wuxuu hi waxaad iga furantahay 2 dalqadood. maarata yurub bay degan tahay, ninkiina soomaaliyuu joogaa. marka gabadhii baa laga shagsiyey, waxaa lagu yidhi ninkan 2 dalqadood ku furay. marka dadka lagu yidhahdo war gabadhii miyaad furtay, oo idhahdo haa, dalqadii 3aadna way ka dhacaysaa. lidaalika 3 dalqadoodba saasaad ku furan tahay oo gabadha yahay maarata. marka arrintaasay ka sheegsantahay. masaladaasi maxay noqonaysaa? awalan horta dalaaqa in la ilaaliyo weeye. jumhuurulculamaa oo 4 imaam ay ka mid yihiin, oo cumar ibnu khadaab uu ka mid yahay, oo aimadii ahlu xadiisku ay ka mid yihiin, waxay qabaan ninku hadduu yidhaahdo xaaskayga 3 dalqadood baad iga furan tahay, 3dii baynay ku tegayso, nacuudu billah. waa masale aada iyo aada u adag. dadkuna maanta way ku dheeldheelaan, nacuudu billah. aad bay dadku ku dheeldheelaan dalaaqa. yaan lagu dheeldheelin. laakiin a'imada sheekh ibnulislaam ibnu taymiya iyo ibnu qayim iyo xadiiska muslimka ku yaala, iyagoo daliishanaya waktigii nebiga iyo 2 sano abubakara iyo waktigii ka horreeyey, dalaaqu wuxuu ahaan jiray qofku wuxuu doona ha fureen, 1 dalqadun baa loo celin jiray. laakiin waktigii cumar ibnu khadaab ayaa dadkii ku ciyaaray dalaaqii. markaasaa wuxuu yihi cumar waxyaaba dadku ay nafis ugu jireen bay degdegsanayaan. marka 3 dalqadood 3 buu ka dhigay cumar, halkii markii hore 3 dalqadood 1 dalqa ka ahaan jireen. marka sida raajix ah waxaan leenahay gabadha 2 dalqadood ninkii uu furay dalqadun baa ka dhacaysa. ninku yacnihii majlis qura hadduu idhaahdo 3 baan furay ama 5 baan furay ama 10 baan furay ama 100 baan furay, 1 dalqad baa loo celiya. khaasatan haddii weliba meesha caruur iyo reerku uu mashaqaysan yahay. haddii reerku uu mashaqaynsan yahay oo isaguna uun furniinka 1 dalqadun uga jeeday. lidaalik waxaan leenahay ninkaas yidhi 2 dalqadood xaaskiga furantay 1 mar, haddii 2da majlis ee uu xaaska ku furay aanay kala duwanayn, haddii 2 jeeroo kala duwan uu furo, dalqad waliba way ka dhacday oo dalqadaasina way ka furantay, tii 2aadna way ka furantay, tii 3aad oo qura, xabadii 3aad oo qura bistoolada ugu jirta, maalintay ka dhacdana finish way ka dhamaatay. xataa tankixa zawjan kayra, ilaa nin kale ay soo marto xataa dib uguma laaban karo. lidaalika waxaan leenahay haddii 2 dalqadood majliska ka wada dhaceen ama mar qura uu yihi waan ku furay oo waan ku furay, matalan ta'kiid ayuu ku celiyey, ama wuxu uhi naa 2 jeer baad iga furantay 1 mar iyo wixii ka badanba, 1 dalqad baa loo celinayaa. ninkii 2 dalqadood baa u harsan, adiguna inuu maaratay dib kuu furo ha ku kalifin, isaguna ha ka toobad keeno. dalaaqana yaan lagu ciyaarin. wallahu aclam. وصلى اللهم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. su-aasha 3aad ee lana soo weydiiyey waxaa ka mid ah, waxay leedahay aabbahay baan hayaa, aabbahiyeed maskaxda ayuu ka jiran yahay. marka wuu xanuunsanaya, wuu isku buuqay. marka mararka qaarkood dawada ma qaato ilaa aanu been u sheegno ama aanu maaratay caanayo wax ugu qooshno ka qarino. mararka qaarkood markuu diido waanu qasabnaaba.
leanna dhakhtarkii iyo dantiisii haddii kale xanuunkuibuu u dhimanayaa. maxaanu yeellaa maaragtay arrintaas waxa weeyaan waa min baabi atacaawun cala albiri waltaqwa walaa tacaawun cala ithmi walcudwaan. ilahay qur-aanka wuxuu ihi tacaawanu cala albiri waltaqwa, isu kaalmay sida wanaagga iyo ilaahay cabsidiisa, haisu kaashanina xumaanta. wallahu yaclamu almuslixa min almufsid, ilaahay qofka muslixa iyo qofka mufsidkaana wuu kala yaqaanaa. faataquu llaha ma stadactum baa layidhi, laa yukalifu llahu nafsan ilaa wascaha. aabbaha inaad dawada been ugu sheegtaan ama dantiisa wadaan ama maxaan ku dhahdaa oo ila isagu caqligiisii iyo cilmigiisi toona waxba ku garan maayee arrin idinku waajiba weeye. khayr baana wadaan, khayrkaana wada. isaguna mukalaf maaha, idinkaa mukalafa. qofka mukalafkaa baa ilahay la xisaabtamaya. isaguna maaratay wuxuu idin leeyahy idin habaarayo waxba idinka qori mayso, ila isaga dantiisiibaa wadaan. dantaasun maaratay ku dadaala, niyo wanaagsan iyo ikhlaas wanaagsan la kaalaya. qof aabihii lagu imtixaamay oo sidaa ugu dadaalaya jannada furihiisa ayuu helayaa. wallahu aclam wajazakum allahu khayr. qasabkaa qasbaysaana dantiisa u qasbaysaanna wax dembi idinkuma jiro. wallahu aclam waaxkam. haddii aad dadaashaan oo ilaahay dartii maaratay u jeedaan oo aydaan wax kale ku maaratay ku qasaynin iyo ceeb kale toona aanay jirin. masalada afraad waxay tahay waxay leedahay gabartani gabar xayd qabta kitaabka qur-aanka ma akhrisan kartaa? masaladan tafsiil baa ku jira, waa la yani masaladani macnaha waxay leedahay furuuc fara badan bay leedahay. gabadha xaydka qabta looma ogola salaada, looma ogola musxafka qur-aanka inay cibaado u akhrisato, looma ogola inuu ninkeedu jimaaco, looma ogola inay kacbada dawaafto, looma ogola waxyaabahaasoo dhan looma ogola. okay, lidaalika gabadha xaydka qabta qur-aanka inay cibaado u akhrisato laa yajuusu laha, leanna cibaadooyinka ilaahay loogu dhawaado khaasatan qur-aanka iyo salaada iyo dawaafkii iyo maarata looma ogola. ninkeeduna ma jimaaci karo markay xayd leedahay ama nifaas leedahay. masaladaas waa masaladaas. waayahay, qur-aanka waxyaabaha adkaarta ah iyadoo adkaar uga jeeda way akhrisan kartaa. matalan markay seexanayso aayad kursida qul acuudu birabbi nnaas, qul acuudu birabbi lfalaq, qul huwa allaha, qul yaa ayuha alkaafiruun, aamana rasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi. ducooyinka qur-aanka kusoo arooray ee qur-aanka ee ducooyinka. laakiin markay akhrisanaysa maxay u niyoonaysaa? waxay u niyoonaysaa dikri iyo ducaa ee qur-aan u niyoon mayso. taasina waa masalada labaad. masalada saddexaad, gabartu hadday ardayo tahay oo ay xaydka ku dhaco ama nifaas ku dhaco, ardaynimadana ay doonayso qur-aankeedii inaanay hilmaamin, madrasadiina ay tegayso, ama ay macalimo tahay oo ay doonayso ardaydeedii inay wax u dhigto, waayahay, ama jaamacad dhigato oo jaamacaddii qur-aankii iyo duruustii laga rabo, min baabi tacliim. gabadha xaydka qabta min baabi tacliim. gabadhu hadday tacliim ku jirto iyadoo xayd qabta waa loo ogolaya qur-aankii inay korka ka akhrido, waana loo ogolaya masxafka iyadoon taabanaynin inta masxafkii loo furo inay indhaha ka akhrido, qur-aankii inay ka baxdo. leanna maxaa loogu ogolaaday? maaha min baabi alcibaada ilaahay ay ugu dhawaanayso oo qur-aanka ay cibaado akhrisanayso, laakiin waa min baabi tacliim. marka gabadha madrasada qur-aanka ka baranaysa ama iyadu baraysa ama jaamacaddii imtixaankii gelaysa, min baabi tacliim. in tacliintii aanay ardaydii ka hadhin oo jaamacaddii ka hadhin oo duruustii ka hadhin baa la doonayaa. ila qofkani waxay doonaysaa mustaqbalka inay wax barato, leanna tacliintu waa waxyaabaha ugu la yaab leh ee laynoo ogol yahay. tacliintu waa wax la yaab leh, leanna tacliintan aad baranaysaa hadhow khalqiga oo dhan baad anfacaysaa. naftaada iska daa, khalqiga oo dhan baad anfacaysaa. qofku inuu tacliintii barto, dhakhtar noqdo, qur-aanka xifdiyo, diinta barto, khalqiga ilaahay uu anfaco. bacda tawxiid wax ka khayr badani qofkaa ma jiro, leanna khalqigii ilaahay oo dhan buu jahligii ka saaraya, dad jaahiliin ilaahay ma caabudaan, laakiin inamaa yataqabal allahu maarata ilahay wuxuu ihi maaratay wattaqu llaha wa yucallimukum. cilmiga ilaahay subxaana wa tacala dadka mutaqiinta ilahay wuxuu ka dhigaa dad halu cilmiga. ilahay wuxuu yidhi mar kale, hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun. miyay samayin kuwa cilmiga liya kuwaan cilmiga lahayn? lidaalika daruur ahaan gabadha xaydka qabta iyo nifaaska qabta hadday min baabi tacliim qur-aankii u baranayso, qur-aankii way akhriyi kartaa, indhaana way ka akhrisan kartaa, waanay xifdiyi kartaa, laakiin masxafka ma taabanaysa, waa loo kala furayaa. hadday cid u kala furto weydana
waxay qaadanaysaa waxay ku kala furto oo ama qalin ama qori ama wax lamid ah. hadda waxyaaba waxaa soo baxayba dee qalin wax laga akhristo on masxafkiiba la taabanahaynin, taasina way kasii fiican tahayba hadday isticmaasho. wallahu aclam. masaladaasina maaratay intaasaan kaga tegaynaa. su-aalaha kale ee maanta aan doonayno inaan ka jawaabno walilahi alxamdu waxa weeyaan waa su-aalo maxaan ku dhahdaa khuseeya kitaabkeenni aan kusoo jiray ee salaada. walilahi alxamdu tabaaraka wa tacaala. shalay waxaanu soo maraynay salaadaha sunnadee lala jahro. shalay waxaan kasoo waranay salaadihii labada salaadood ee ciidda, su-aalihii lanaga soo weydiiyey. waxaan kusoo guda jiray oo kale salaadaha kale ee loo yaqaano salaada kusuufka iyo khusuufka, marka dayaxu madoobaado iyo marka cadceedu ay madoobaato, su-aalo ku saabsan. shalay waxaan ka waranay salaada kusuufka iyo khusuufka in lala jahro oo sunnooyinka lala jahro ay tahay in lala jahro, oo qur-aanka marka cadceed madoobaad dhaco ama dayax madoobaad dhaco asalaatu ljaamica baa soo aroortay. ilay dadku suuqyadii kala jiraan, in dadka loo dhawaaqo la dhaha asalaatu ljaamica, asalaatu ljaamica, war salaadii ha la isugu yimaado oo mikrofoonada laga dhawaaqo, kadibna masaajidada la tago, kadibna la tukado, kadibna in la tukado oo weliba qof xaafida oo xifdigiisu xoog badan yahay dadka uu tukiyo. haddii qof xaafida la waayo, qof codkiisu fiican yahay oo qur-aanka tajwiidkiisa iyo si wacan masxafka uga garanaya, intuu masxafka qaato waa inuu dadka tukiyaa. leanna waxaa la rabaa in salaada lagu jiro ilaa cadceeddii ay caddaato oo madowgii ka baxdo, ama dayaxii uu madowgii ka baxo, ilaa haddaanay salaad waajibi soo gelin oo markaa la doonaya inta salaaddii waajibkaa maaratay la galo in intaa laga baxo haddana salaaddii dib loogu noqdo, yacni kusuufka iyo khusuufka. lidaalika salaadaha khusuufka sidaynu sheegnay waa lala jahrayaa, waa lala jahrayaayo sare ayaa loo qaadayaa maaratay codkooda. sidee loo tukadaa? waxaa loo tukadaa salaadaha horta khusuufka. qofbaa wuxuuna weydiinayaa leeyahay had iyo jeer b b c da iyo idaacadaha iyo waa la sii sheegaa oo waxaa la yidhaahdaa dayaxaa madoobaanaya ama cadceeddaa madoobaanaysa. sheegiddaa lasii sheegayna sidii bay u dhacdaa. sheekhow arrintaa bal ka waran, miyaanay ahayn qeybkii oo la ogaaday? alxamdu lilahi wakafaa wasalaatu wasalaamu calaa cibaadi aladiina istafaa washhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah washhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluhu sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam. maaha dayaxa madowgiisa iyo cadceedda madowgeedu in lasii sheegaa dhibaata kuma sugnaa, qeybna maaha. waxay ka dhigan tahay hadda iminka marka daruurtu soo kacdo ee roobku soo da-ayo, haddaad daruurtii aragto oo tirahdo roob baa da-aya, dhibaato kuma sugnaa, leanna waad ujeedaa in daruurtii iyo calaamaadkii roobka di-idiisa o dhan baad ujeedaa. wakadalika marka laga hadlayo dayaxa iyo dhulka iyo cadceedda, mid waliba wa fi kulli maaratay fi falakin yasbaxuun. cadceeddu falag ay leedahay iyo orbit ay leedahay bay dabaalanaysaa sida ilahay qur-aan ku sheegay. dayaxuna orbit iyo falag ay leedahay oo wareegsan ayuu isna ku dabaalanaya, ku wareegaya. dhulkuna falag uu leeyahay iyo orbit uu leeyahay ayuu ku wareegayaa sida ilahay qur-aan ka sheegay. qolada synisku imikay fahmeen, laakiin ilahay qur-aanka suuratu yaasiin iyo suwarka kale wuxuu inoogu sheegay 1400 oo sano ka hor in systemkan solar systemka ee dhulka iyo dayaxa iyo cadceedda iyo dhulka kaleba inay maaratay mid waliba falagiisa uu ku wareegayo horaa laynoogu sheegay. lidaalika qur-aanka sidaynu suuratu furqaan kusoo maray, habeenka iyo maalintu waxay ka dhashaan, habeenka iyo maalintu waxay ka dhashaan qeybta dhulku marka uu falagiisa dabaalanayo, qeybta maaratay xigta xagga cadceedda maalin weeye, qeybta xagga cadceedda kasii jeedaana waa habeen, leanna habeenku waa harhkii dhulka, oo qeybta cadceedda eegaysaa mar walba waa maalin. qeybta cadceedda ka jeedaana har bay ku jirtaa. ilaahayna qur-aanka waxaynu kusoo maray suuratu furqaan ayaynu kusoo maray, yacnihii aayadda tafsiirkeeda iyo sida cadceedda iyo sida ay isu daba socdaan, harhka oo habeenkiiya oo meesha cadceeddu ka tagtaa iyo maalintii oo meesha qeybta cadceeddu hayso ah. in harhka iyo cadceeddu isdaba socdaan, in harhka
oo habeenkii iyo cadceeddu isdaba socdaan oo meel kasta oo cadceeddu timaado oo dhulkii cadceeddu ay ku beeganto in harhkii ka tegayo habeenkii uu guuraayo meel kasta oo cadceeddu ay ka wareegto dhulka ana in harhkii imanayo qeybtii habeenkii ay noqonayso walilahi alxamdu tabaraka watacaala dayaxuna waa la mid oo isaguna marka uu habeenkii sida dhulkoo kale ayuu habeen iyo maalin u leeyahy dayaxu habeen iyo maalin buu leeyahy qeybta cadceedda xigtaa waa maalin bay u tahay ilaa dayaxu waa dhule sida dhulkeen oo kale qeybta habeenkii cadceedda ka jeednaana habeen bay u tahay lidaalika habeenkii markaynu dayaxa iftiinkiisa arkayno cadceedda iftiinkeedii oo dayaxa haya baynu arkaynaa dayaxu iftiinka isagu iskama leh laakiin qeybta cadceeddu hayso ee maalinta u ah ayaa habeenkii markaynu aragno aynu gudcur innaga inoo tahay habeenkii markaynu aragno dayaxu wuxuu inoogu iftiimayaa leanna iftiinkii cadceeddaa dayaxa haysa marka qeybta maalintii dhulka qeybta maalinta ah dayaxii iftiinkiisii wuu joogaa laakiin maalinta iftiinka ay cadceeddu ku hayso dhulka ayaa ka weynoo waa sababta dayaxa aynaan maalintii ugu baahnayn laakiin habeenkii qeybta harhka ku sugan ee cadceeddu ka jeegto dhulka iftiinkaa dayaxa ee cadceeddu hayso ayaynu ka faa'iidaysanaa marka maadaama mid waliba uu falagiisii marayo dadka sayntiskii way xisaabin karaan dayaxa dhulka iyo cadceeddu mararka qaarkood dayaxu intuu soo dhex galo iftiinkii maalinnimadii aynu ka heli lahayn cadceedda in dayaxii naga qabanayo oo dabadeedna cadceed madoobaad dhacayo maxay cadceeddu madoobaanaysaa cadceeddii iftiinkeedii ma tegin dhulkiina waxba iskama bedelin laakiin cadceeddii iyo dhulkii waxaa soo dhex galay oo orbitkiisii dabaalanaya dayaxii waana la xisaabin karaayo culimmada saynisku in waqtiyada ka mid a maalinta ka mid a in cadceeddu inaga madoobaan doonto maxaa yeelay cadceedda iyo dhulka ayaa dayaxii soo dhex maray oo iftiinkii inaga qabtay waa wax la ogaan karo qeybna maaha waa sida roobka aad arkaysoo kale waa la kale indhadheer yahayunoo qolana taliscoobyo iyo xisaab bay haysataa qolada reemiyiguna dee intaa indhahoodu arkayun baarun bay haysataa marka nin waliba inta uu cilmigii isticmaali karo iyo xogta ilaahay uu ina siiyey inaynu isticmaalno oo ilaahay baa cilmiga inoo baneeyo yidhi hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun qof wax og iyo qof aan wax ogin isku mid maaha inamaa yatadakaru ulul albaab lidaalika qodobkaa waxaan leenahay wiil kale dayaxii in lasii ogaado isagoo madow iyo cadceeddu inay madoobaato in lasii ogaado wax dhibaatii kuma sugnaa wax allaala wax dhibaatii kuma sugnaa hadda balu fiirso wax dhibaatii kuma sugnaa maarata waana wax la ogaan karo wax dhibaatiina kuma sugnaa qur-aanka iyo sunnadana maaratay waa wax laga fahmi karo waana wax cilmi lagu gaari karo wax dhibaatiina kuma sugnaa qeybna maaha arrintaasi arrin qeyba maaha waa wax arrin dadka ilaahay uu yidhi ku dadaalay inay ogaadaan oo aqoon badanoo falaga iyo cilmiga iyo waktiga iyo caafimaadka iyo dawada iyo dhaqaalaha iyo tiknolojiyada iyo dadku inay cilmigooda horumariyaan oo xaqaa'iqda ilaahay nicmooyinka uu siiyey ay daah furaan oo ay ilaahay ku rumeeyaan hadday rumaan waayaana maalinta qiyaame lagu naaro ila nicmadii ilahay bay ku kufreene waa shay inagu waajiba oo aynu dalbayno oo maaratay layna yidhi maaratay barta masaladaas waa masalada kale waxay tahay salaada see loo tukadaa cadceed madoobaadka ama dayax madoobaadka waxaa la tukadaa salaadaas laba ragcadood labada ragcadood see loo tukanayaa ragcaddiiba waxay leedahay laba rukuucood oo markuu imaamku salaada xidho faatixadu akhriyaa dabeedna qur-aan dheer buu akhriyaa 2 juz 3 juz intuu awoodi karo kadibna wuu rukuucaa intii uu taagnaa in leeg ama wax ku dhow buu rukuucsanaanaya ilaa 30 daqiiqo 20 daqiiqo in leeg buu rukuucsanaan karaa waa rukuucdii markuu ka soo kaco halkii uu ka sujuudi lahaa mar labaad qiraa'o labaad baa la bilaabaya qiraa'o ku dhow qiraa'adii dheerayd ee hore 3 juz ahayd hadduu akhriyey tan dambana 2 juz buu ku akhriyay hadduu tii hore juz akhriyey tan dambana juz wax ku dhow buu akhriyaya haddana qiraa'adii oo faatixadii ayuu akhriyaya dabeedna qiraa'o kalu raacinaya marka muxuu akhriyay 2 faatixo iyo 2 qiraa'o markuu qiraa'ada dambe dhameeyo ayuu haddana mar labaad rukuucaya markuu rukuuco rukuucdii hore rukuuc ku dhow buu rukuucsanaanaya waxaasoo dhanna duco iyo adkaar iyo khayr dhammaantii buu ilaahay maarata ugu rukuucsanaanaya rukuucda qur-aan laguma akriyo sujuuddana qur-aan laguma akriyo rasuulku wuxuu uhi inii nuhiitu
an aqra'a alqur'aana fi rukuuci wa fi sujuud. markuu rukuucda labaad ka soo kaco wuu sujuudayaayoo labadii sujuudood ee caadiga ahaa ayuu sujuudayaa, laakiin sujuuduhu iyana waa laba sujuudood oo sidii rukuucda dhaadheer, mid walba wuxuu sujuudsanaanaya 10 daqiiqo ama dhowr iyo 10 daqiiqo kolba intay gaadho, intuu awoodi karo. markuu labadaas sujuudood ka baxo buu haddana u kacaya ragcaddii labaad. ragcaddii labaadna muxuu samaynayaa qiraa'adii dheerayd buu akhriyaya, faatixadii iyo qiraa'adii dheerayd. haddana wuu rukuucaya, rukuucdii dheerayd, rukuucdii buu ka kacayaa, qiraa'adii faatixada iyo qiraa'adii dheerayd buu ku noqonayaa. haddana mar labaad buu rukuucaya, rukuucdii dheerayd, rukuucda labaad marku ka soo kaco ayuu haddana laba sujuudood dhaadheer gelaya. marka salaadaha kusuufka iyo khusuufka sidaasaa loo tukadaa. mid walibana waxay leedahay 2 qiraa'o iyo 2 rukuucood unbaa ziyaado ah. inta kale salaadaha kale la mid tahay, waanay dheer tahay. rasuulka ayaana yidhi sala allahu alay wasalam sidaas weeye. oo waxaa la yidhi markii dayaxu madoobaaday ama cadceeddu madoobaatay ayaa saxaabadii joogtay madiina waxay idhahdeen wiilkii ibraahim oo maria maaratay mariyatu qibdiya ay dhashay oo 18 bilood jiray ayaa geeriyooday. markaasaa waxay idhahdeen kasafat ishamsu aw khasafat ishamsu maaratay limowti maaratay ibraahim, wiilkii nebiga ayaa dhintayoo cadceeddii waa taa madoobaatay. nebigu wuxuu dhaha salaatuljaamica, dadkii uu masaajidkii madiina isugu keenay. markaasaa rasuulku wuxuu ihi ina maxaan ku dhaha maaratay ashamsa waalqamara maaratay aayataani min aayaat illah. ina shamsa waalqamara aayataani dheh, waayo inadu waxay nasbisay shamsada iyo qamarka. ina shamsa waalqamara aayataani min aayaat illah. cadceedda iyo dayaxu waa 2 aayadood ilaahay aayaadkiisa waa kow. falaa yankasifaani aw falaa yankhasifaani uma madoobaadaan limowti axadin walaa lixayaati, qof geeridii uma madoobaadaan, noloshiisana uma madoobaadaan. haddii aa aragtaan waxa weeyaan salaada u degdega, ilaahay weyneeya subxaana wa tacaala, oo cibaado ilaahay ku weyneeya subxaana wa tacaala. leanna wain tacudu nicmat allahi laa tuxsuuha. nicmooyinka ilahay isagaa iftiinkiina siiyey. marka iftiinka haddii laynaga qaadi lahaa ka war, in jacala allahu maaratay leylakum sarmada, haddii cadceeddaa madoobaatay habeenkaaba laga dhigi laha cadceed badda inaan dib u arki lahayn ka war, ama maalin ba inaan dib u arki lahayn, habeen ba inaan dib u arki lahayn, maalin inu laga dhigi laha ka war. man ilaahun hayru llahi maaratay ya'tiikum, yaa ilaahay mooye cid kale ina siin lahaa oo habeen iyo maalin iyo khayrkaa ina siin lahaa? laa axad ina siin lahaa. lidaalika maxaa laynaga rabaa inaynu maalintaa cibaadaysano. salaadana sidaas baa loo tukadaa. salaadana sidaas baa loo tukadaa. marka la xidho waxaad niyeynaysaa inay salaatu kusuuf tahay, kadibna shaydaankaad iska naaraysa. istiftaax baa la sameeyaa sida istiftaaxa loo samayn jiray, wajahtu iladii fadara samawati walardi. dabeedna shaydaanka la iska naaraa, bisinkaa la qabsadaa, faatixadii baa la akriyaa, qur-aankii dhaadheeraa baa la akriyaa sidaynu sheegnay. kadibna sidaa aan sheegay rukuucdaa dheer baa maaratay quraa'ada dheer, kadib rukuuc dheer, kadib waa laga soo kacaa qiraa'o dheer oo faatixadii ka horeyso, kadibna haddana rukuuc dheer, kadibna sujuud dheer, 2 sujuudood dhaadheer, haddana ragcaddii labaadna intii in leeg ayaa lagu sameeyaa. wallahu aclam. in lagu qunuudo salaada kusuufka iyo khusuufka nebiga kama sugnaa sal ly slam. dadka qaar baa ku qunuuda, laakiin qunuudkaasi lam yathbut can nebiy sal ly slam. in lagu qunuudo nebiga kama sugnaanin. cibaadaduna waxa weeye waa waqf, sida nebiga ay uga soo aroortay in loo daayo. cibaadadu asalkeeda ilaahay baa yaqaano waxa raali gelinaya, inagu ma naqaano oo cibaadada ma garanayno. leanna cibaadada iyo waxa ilaahay raaligeliyo haddii waxaanad garanahayn aad ilaahay ugu cibaadaysato waa bidco. bidcaduna waa dalaal. wa kullu fi dalaalatin maarata wa kullu dalaalatin fi naar. lumid kastaana naarta ayaad ku gelaysaa. marka ambiyaba laynooma soo direen haddaan cibaadada ilaahay keligiis ka lahayn, oo aan cibaadadu aan ahayn waqf, in sida ay ku timi oo qura ilahay aad u cibaadaysato lama ogola. waxyaabaha fiqiga iyo daruuraadka kale iyo waa la rogrogi karaa masaalixda guud ee muslimiinta. maanta technolojiyadu way isbedelaysaa, masaajidadu way isbedelayaan, qur-aanki wuu isbedelayaa. qur-aankii maanta electronic baa laga dhigay, mobiladii baa lagu shubay, way isbedelayaan yani fatwadeeda. laakiin isbedeli maysa cibaadadu. salaadii, soontii, xajkii, yani maaratay zakadii waa sideedii, isbedeli mayso. waayo cibaadadu maarata waa waqfi weeye, waa waqfi weeye. waayahay marka ilaahay la baryaayo had iyo jeer ducooyinka, dadka qaar baa matalan marka roobka iyo maaratay khoofka iyo maaratay gacmaha hoos u jeediya, ma soo aroorin. mar walba ducadu waxay soo aroortay in ilaahay subxaana wa tacaala gacmaha maaratay in sidaa la yidhaahdo. axaadiis baana kusoo arortay rasuulku yidhi midkiin
markuu gacmihiisa ilaahay kor ugu qaado ee sidaa gacmihiisa maaratay madhan ilaahay hoos dhigto ilaahay ma soo celiyo sifra iyagoo madhan ilahay kuma soo celiyo hadduu qofku muumin yahay oo mukhlis yahay oo ilaahay wax wanaagsan weydiisto yacni haddaan markaa la siin ducada dib baa loogu dhigayaayo ama dhibaato kusoo maaratay socoti baa lagaga badbaadiyaa ama dib baa loogu dhigaa ama jannadaa lagu siiyaa ama khayrkaa lagu siiyaa ama waa lagu barakeeya baryo ilaahay aada bariday marnaba ilahay kugu qadin maayo marnaba ilaahay kugu qadin maayo bal mu'miniinta ilaahay siduu ducadooda iyo khayrkooda u dhegeysto waxaa laga yaabaa in laga raajiyo leanna imtixaan baa ku jira iyo in lay sabraan iyo in jannada loo badiyo laakiin qofka gaalkaa ama munaafiqa waxaa laga yaaba ila ilaahay ma rabo inuu dhegeystay markiiba waa la siiyaa adduunkana waxoogaaga maaratay uu ka helayo ila kolleyba naar baa u taale waa loo qadimaa lidalika xataa ixsaanka gaalada iyo munaafiqiintu ixsaankay sameeyaan ila waa bashar dad badan oo gaalo ah baa ixsaan sameynaya sadaqa sameynaya dadka caawinaya qalbigoodu maaratay xagga basharka huyumanis baa la dhaha huyumankay ku dadaalaan waa sababtay maanta muslimiinta iyadoo muslimiinta isdilayso muslimiin badan ay ugu naxariisanayaan usoo dhaweynayaan caruurtii ugu naxariisanayaan caruurtii iskoolle special ugu sameeyeen dadkii waaweynaa meele special ugu sameeyeen yacni dadkoodii ay caawinayaan in badan oo adduunka ay caawinayaan dhirtii caawinayaan biyihii pollutionka iyo masiibada adduunka ka socota ay leeyihiin hala joojiyo dumarkii maaratay rightskoodii ay u raadinayaan caruurtii human rights ay ugu sameeyeen odayaashii rights loogu sameeyey deegaankii u ilaalinayaan waxaas oo bashar ah oo bashariyada ilmo aadan wixii aan ilaahay rumaynin ay khayro oo ay wadaan ilaahay ka dayaci maayo ina allaha laa yudicu camal almuslixiin kuwa muslixiinta ee qofkaa islaax la imanaya camalkooda ma dayaco laakiin xaggee lagu siinaya adduunkaa lagu siinaya adduunka ayaa lagu siinaya cimrigooda loogu dheereeyaa maxaan ku dhahdaa cimrigooda loogu dheereeyaa caafimaadkaa loogu siyaadiyaa arsaaqdaa loogu badiyaa haddaba lu fiirso cilmigaa loogu kordhiyaa haddaba lu fiirso farxad baa lagu siiyaa leanna gaalada kuwa waxtaraa mar walba waxay ku faanayaan waxay ku farxayaan waxtarka qofku haddaanu waxba tarin axaadiis baa seexa ku sugan hadduu qofku bakayl yahay inuu dadka waxba tarin waxa weeyaan laabtiisa cidhiri baa dila murug baa disha laakiin qofku ka muxsinsan yahay ee waktigiisa iyo lacagtiisa iyo cilmigiisa iyo maxaan ku dhaha quruxdiisa iyo codkiisa iyo basharka uu si kasta u caawin karo ilahay farxad buu soo gadaal mariyaa qof kasta mar kastood basharka caawiso ilaahay farxad buad ku noolaanaysaa cimrigaa lagu dheeraynaya carruurtaa lagu barakeynaya laakiin gaalada ilahay uu ka xarimay jannada maadaama ay iyagu ka xarimeen naftooda inay ilaahay caabudaan oo khaaliqii abuurtay ay dulmiyeen oo dulmigaasna ilahay wuxuu kaga argoosanayaa inuu naarta geliyo jannada u diido amaa adduunka wixii ay ixsaan geysteen waa la siinaya hal jazaau lixsaani ila lixsaan waxaa kaloo masale ah gaaladu wanaagay sameeyeen hadduu ninka gaalkii soo islaamo aakhiro waa loo labalaabaa oo saxaabigii nebiga seedigii ahaa oo khadiijo bintu khuwaylid eedada rumow ahayd ayaa rasuulka u yimi wuxuu ku yihi ya rasuul allah ka waran acmaal aanu samaynay fi ljaahiliya maxaanu maaratay markaanu islaamnay rasuulku wuxuu ihi aslamta calaa maa aslafta wixii aad horu marsatay islaamnimadaada waa laguu ziyaadinaya waa lagu siinaya mar haddaad islaamtay wixii camal ahay oo dhan eed gaalnimadii ku samaysay ajar baa lagu siinaya bal xataa qofku xumaantu samayn jiray baa wanaag loogu bedelaya ila wuu toobad keenay ulaaika yubadil lahu sayiatihim maarata xasanaat saas wey marka walilahi alxamdu masalada kale muhimkii waxay tahay oo xoogaa aan ka warrami doonaa maaratay waa su-aalo ku saabsan janaazada qofka muslimkaahi markuu geeriyoodo marka ugu horeysa horta waxaa muslimka la doonaya in qofka muuminkaah uu sabro asabru cala almasaa'ib in masiibooyinka lagu sabraa waa waajib maaha sunne xataa waa waajib qofku hadduu ku sabri waayo waxaa laga yaabaa inuu naarta galo nacuudu billah axaadiis badan baana soo aroortay qofka marka laga geeriyoodo geerida ku sabri waaya ee ilaahay wuxuu qaatay ilaahay u diida maalinta qiyaame waxaa loo gelinayaa maryo daamurah oo naarta jahanaba maaratay subxaan allah lidalika rasuulku wuxuu yihi kuwa naayixaadka ah ee baroorta ee ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa qofku qaatay diida waxaa loo geliyaa saraabilu min qadraan dhar maxaan ku dhaha xijaab iyo maryo baa loo geliyaa daamur ah oo naarta jahanaba ah maaha daamurkan adduunkee kulol mid naarta jahanaba ah weeye nacuudu billah
naarta jahanami waa 100 jeer bay ka kulushay naarta adduunka taalla daamurkaasina 100 jeer ama in ka badan buu ka kululaanayaa naarta daamurkaas marka waa in lagu safraa ilahay qur-aanka wuxuu yihi maaratay isagoo arrintaa dadka muuminiinta ah ku maaratay waajibinaya ilahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala dadka muuminiintii waxa weeye walanabluwannahu bishayin min alkhawfi waljuuci wanaqsu min alamwaali walanfusi wasamaraat wabashiri saabiriin waxaanu idinku imtixaami baa layihi bishayin min alkhawf cabsi iyo waljuuc wanaqsi min alamwaal maalkii oo idinka baabaa abaaro walanfusi dadkii oo idinka geeriyooda wabashiri saabiriin u bushaaree kuwa sabra waa waajib aladiina idaa asaabahum musiiba markay asiibta maxay odhanayaan qaaluu inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun saas bay odhanayaan inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun bay odhanayaan ilaah baa annaga nale ilaahay baananu isaga u noqonaynaa saas bay odhanayaan ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma kuwaasi waxay leeyihiin ilaahay raxmadiisa iyo ducooyinkiisa maaratay wa ulaa'ika hum almuhtaduun iyagaa hanuunay marka masalada labaad waxa weeye ay ku saabsan janaa-ista waxaa la doonayaa qofka muuminka ahi oo lana soo weydiiya had iyo jeer su-aalaha lana soo weydiiya waxaa ka mid ah gaaladaana arrintaa wada dhalinyarada qurbaha joogtaana na soo weydiisaa waxay leeyihiin ilaahay subxaana wa tacaala haddaad tidhaahdeen wuu raxmad badan yahay muxuu carruurta yaryar iyo odayaasha gaboobay iyo hadduu doono kuwa waalan ee aan caqliba lahayn maxaa ilaahay xanuunka ugu keenaa ilmaha yar muxuu galabsaday odaygan gaboobay ee asaasiqii muxuu galabsaday qofkan dhigaalihi muxuu galabsaday haddaan waxaan keenaya aanay iska ahayn dabeecadda uun ilaahay sawtaa tirahdeen waa ilaah raxmad badan marka su-aashaas oo kale markay ku weydiiyaan kuwa gaalada ah iyo mulxidiinta waxaad ugu jawaabaysaa asalka ilaahay addoomuhu waa milkigii ilaahay addoomaha ayaa iska leh ilaahay subxana wa tacaala ninka su-aashaa ku weydiinaya haddaad tidhaahdo dhagaxan buurta yaalla inaan dhagax ka dhigto ama aan guri ku dhisto ama aan dhardhaar ka dhigto oo dabka ku shito dablu firso may banaanta haabuu ku odhanayaa lana waa dhagaxa okay waa dhagax ilaahay dadku dhagax oo kale u yihiin sida dhagaxa adigu aad marna guriga ugu dhisato marna qubuurta aad maaratay dhekadeeda u saarto marna aad dhardhaar cuntada ku karsata aad ka dhigto marna intaad jejebisa aad sibir ka dhigato ayaa ilaahay subxaana wa tacaala addoomahana waa dhagxaantiisii waa addoomihiisi isagaa iskale waa milkigiisii awalan horta ilaahay milkigiisa siduu doono inuugu tasarufo isaga ayaa xaqu leh laa yus'alu camaa yafcalu ilaahay lama weydiiyo wuxuu samaynayo wahum yas'aluun waa su-aasha koowaad leanna markuu leeyahay ilaahay muxuu sidan u yeelayaa wuxuu ilaahay ka dhigayaa sidii nin yaroo candhabuuray wada sheekaysanayaan nacuudu billah walilaahi almathalu lacla ilaahay subxaana wa tacaala maaha qof yar oo aad wada sheekaysanaysaan ilaahay waa khaaliqii adiga iyo khalqigaba iska lahaa waxaanuu xaq u leeyahay inuu tasarufkiisa siduu doono ka yeelo taasi waa qodobka labaad imtixaanka la imtixaamayo khalqigiisa na weliba wanaag buu ilaahay inta badan uga jeedaa iyo iyaga wax udana imise gaal ayaa inta la imtixaamay xanuunkii ku islaamay allahu akbar wa kadalika gaalka laftiisa marka la imtixaamo imtixaankan waxaa laga yaabaa naarta adduunka uu aakhiro geli lahayn laga nusqaamiyo leanna gaaladu way kala naar badanta naartu darakaad bay leedahay qofka uu ka ixsaan badan yahay ee adduunka lagu imtixaamay naartiisu way ka yartay aakhiro qofka isagoo gaal ah ilaahay loo sakhiray gaalnimada ee maaratay dabarka laga furay ilahay wuxuu yihi maxaan ku dhaha subxana wa tacaala sanastadrijum min xaysu laa yaclamuun wa umlii lahum ina kaydii matiin waa loo seeta dheeraynaya gaalka uu ilaahay doonayo naarta halka ugu hooseysa in la geliyo gaalnimadiisa iyo xumaantadiisa ninka ugu gaalnimada badan weeye ee adduunka o dhan halaaga ilaahayna caafimaadka ugu badan caruurta ugu badan xoolaha ugu badan wax kasta oo uu doono waa la siiyaa leanna maalin baa ka dambaysa nacuudu billah lidaalika masaa'ibka dadka ku dhacaya gaal iyo islaamba ilaahay dantooda ayuu u imtixaamaa oo hadday gaalada tahayna waxaa laga yaabaa naartii in lagaga nusqaamiyo darakaadka hoose ay galaan kuwa la imtixaamaa kuwa la imtixaam waayana naarta kuwa ugu hooseysay gelayaan leanna imtixaanka gaalka dan baa ugu jirta islaamkana dan baa ugu jirta oo ilaahay subxaana wa tacaala masaa'ibka iyo xanuunada
iyo caahaadka iyo xusniga iyo murugta waxa weeye maaratay waa takfiiru dunuub, ilahay dunuubtuu ku dhaafaa. waynaga akhrina kitaab dhan oo la idhaahdo wa bashiri saabiriin 21 dersi baynu ka akhrinay. qofkii masaladaa doonayo kitaabka dib ugu laabo uu qoray sheekh mustafa alcadawi insha allah. waynu dhammayn doonaa kitaabka, waxaynu maraynaa akhirkiisii ilaa dersigii 20aad baynu akhrinay, meelahaas 21aad. marka waxaad ogaan doontaa imtixaanka ama lagu imtixaamayo ama aad murugoonayso, xanuunsanayso, ubadka lagaa qaadayo, waalidka lagaa qaadayo, maalka lagaa qaadayo, waa aayaddii aynu soo akhrinay. walanabluwanahum bishayin min alkhawf ayaa laynagu imtixaami, cabsi, waljuuc, gaajo, maarata wanaqsi min alamwaal, maalkiioo burbura, wathamaraat, midhihii oo taga, walanfusi, naftiioo maxaan ku dhahdaa baxda, wanaqsi min alamwaali walanfusi wathamaraat, wabashiri saabiriin, u bushaare baa la kuwa sabra, aladiina idaa asaabahum musiiba, kuwa masaa'ibku markay asiibaan noocay doonto ma aato, qaaluu inaa lilahi wa inaa ilayhi raajicuun, ulaa'ika calayhim salawaatu min rabbihim waraxma wa ulaa'ika hum lmuhtaduun. marka had iyo jeer dhibaatooyinka geerida ka yimaada qofku hadduu ku sabro waxa weyaan jannadu ku gelayaa, ilaahay darajaad sare ayuu maaratay ku siinayaa kii dhintay ee ku sabray xanuunka markuu xanuunsanayay iyo kii ehelkiisu ay duugteenba. waayahay su-aalaha kale ee lana soo weydiiya waxaa ka mid ah meydka waxaa loo yaqaano talqiinta. waxa idinku hadda dhalinyarada dambe may soo gaadhin, lakiin anagu waagaan malcamadaa dhigan jiray. waagaan malcamadaa dhigan jiray markuu qofku geeriyoodo oday kitaab yar sitaa loo yeedhi jiray, markaasuu qofkii markuu dhimanayo ayaa la odhan jiray ha la gunaanado. markaasaa kitaabkaas ayaa mararka qaarkood isagoo nool buu akhriyi jiray, mararka qaarkoodna markuu geeriyoodo oo badanka ah ayuu akhriyi jiray. oo waxaa loogu yeedhi jiray qofka magaca hooyadii, waryaa hebelow oyna heblow, hadday 2 malag ku yimaadaan oo 2daa malag ay ku weydiiyaan man rabbuk, waxaad tiraa rabbigay waa alleh. hadday ku weydiiyaan nebigaaga waa kuma, nebigay waa muxamed. hadday ku weydiiyaan diintaadu waa tuma, diintaydu waa islaam. hadday yani xadiiska noocaasa kitaabka sheegaya in qofku markuu dhinto inta kitaabkaa lasoo qaado xadiiskaa talqiinta la akriyo oo dad nooli ay qubuurtii isagoo gudaha ku jira halkaa uga yeedhiyaan waa mukhtaliq, waana xadiiskaasi waa mawduuc. aktharu alculamaa dacfigiisa way isku waafaqsan yihiin. dad maxaan ku dhahdaa beenaalayaalana sanadkiisa ku jirta lamana daliishado. culimada dacfigiisana cidaan caddaynin madaahibta ma jirto, cidaan caddaynin inuu xadiiskaasi daciif yahay ma jirto. lidaalika talqiinta in qof isagoo adduunka jooga uu qof aakhiro galay uu kitaabu sii akriyo uu idhahdo ina heblow, ina heblaay, waxaa samee, waxba kama jiraan. xadiiskaasina waa daciif. dacfigiisuna maaha ilaa xadiista qaar baa dacfigooda la daliishan karaa oo axkaam laga ratibaa markay duruuqdooda la eego iyo axkaamta guud ay hoos yimaadaan iyo qur-aanka iyo waxyaabo kale iyo usuusha caamka. xadiiskaasi xadiis kabmaaya oo usuusha islaamka meella kasoo gelaya ama isaga sidiisa loo daliishan karo oo ah waxyi nebiga ka sugan maaha. waa masalo. masalada labaad waxay tahay waxyaabaha xaaraamtaa waxaa ka mid ah ee lana soo weydiiyey dadkuna iminka ay fududaystaan bal ee ay doonayaanba inay guryo ka dhigtaan waa qubuuraha. qubuuraha muslimiinta meesha dowladda islaamku ay qubuuraha ka dhigtay ama dhulka dadka muslimiinta muxsiniinta ay qubuuraha u iibiyeen, qubuuraha dadka lagu aaso ayaa milkiyey. milkigaana dadka asxaabu qubuurkaaba iskale. marka dhulkaa asxaabta qubuurtu ay ku aasan tahay in lagu saxaroodo iyo in xoolaha lagu raaco iyo in lagu dul istaago iyo in inta la boobo dhul laga samaysto oo inta qubuurtii laga soo saaro gurya laga dhisto, intaba waa xaaraan. rasuulku inoo sheegay sala allahu alay wasalam. midkiin wuxuu yidhi intuu qubuur isku dul taago inuu ku saxaroodo waxaa uga qurux badan inuu naar dab ah intuu ku fadhiisato jidhkiisa ay gubto oo fashlayso baa uga khayr badan bu rasulku yiri sal ly slam. meesha asxaabulqubuurka marka dadka lagu aasayo hadday dhir ka baxday dhirtii in la gooyo. ila dhirta waxaa fiican in asxaabulqubuurka dhirta loo daayo meesha ay meel hadhaca noqoto oo roob ku da-o maarata ila iyagaa milkigooga iskale. laakiin meesha qubuuraha lagu aaso haddii dhir fara badan intay ka baxdo ay jiq noqoto oo meeshii dadka lagu aasi lahaa la baneeyo lidaruura way banaanta. daruur ahaan in loo baneeyo meeshii way banaanta oo geedkii loo jaro. ama haddaan daruuro looga baahnayn dhirtaa loo deynaya, xataa dhirtooda la jari maayo leanna waa milkigoodii. inta badan deegaanka iyo dhirta in la ilaaliyana kuwa qubuurta ku yaaliyo kuwan qubuurta ku olba waa waajib. waxyaabaha maanta roob la-aanta soomaaliya ugu wacan
waxa weyan waa dhuxusha iyo dhulkeenu baabinay, waa jahli. abaarta innaga ina haysaa maanta maaha abaar maaratay inaga maaratay ilaahay iyo khalqiga katoona aynu ku canaanan karro, waa abaar inagu aynu gacmaheenna ku abuuray. haddii dhirta la jaro, dhirtu roobka qayb bay ka tahay, soo ma ogdin? dhirtu qayb roob bay ka tahay maarata, oo macnaheedu waxa weeyaan dhirtani abuurka roobka iyo daruuraha iyo systemka roobka uu ku yimaado qayb weyn bay ka tahay. meeliba meeshay ka kaynta badan tahay ee ka dhirta badan tahay, ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sabab uga dhigay inay roobka soo jiidato oo roobkii uu ku bato. bal ee biyaha dhusunka ku jira dhirta ayaa nuugta, dabeedna way barabaxdaa. biyo fara badan oo kuwa badda iyo kuwa maxaa la yidhahdaa dhulka ku jira iyo kuwa dhirtu marka ay samada aadaan baa ilaahay subxaana wa tacaala dib roobkii uga abuuraa, oo roobku cyclekaasu ku yimaadaa. waana sabab ilaahay uga dhigay, ila wax walba sabab buu uga dhigay. abuurka ilahay baa iska leh. anuu xaaskayga carruur baan leehay, haddaanan xaas guursan lahayn oo xaaskayga u tegi lahayn, dee ilaahay carruur ima siiyeen. wakadalika roobka ilaahay ku siin maayo asbaabtii roobka aad ku heli lahayd ee ilaahay uu asbaab uga dhigay haddaanad ku dadaalin. sida reerkaba aad u guursanayso ayaa loogu talagalay roobka iyo deegaankana in loo ilaaliyo. haddaad deegaankaagii baabiiso oo dhuxul ku baabiiso oo diin la-aan ku baabiiso oo aad meel saboodhina oo cidlo ah oo qof geed abuurayaaba aanu jirin oo ummad dhirta la cola haddaynu nahay, waxa weya waynu halaagsamaynaa. lidaalika dhirta quburaha ku taala lama gooyo ilaa daruuro iyadoo qabrigii meesha la banaynayo mooyaane. waxaa la mid a oo maaratay masaa'ilka maaratay lana soo weydiiya waxaa ka mid ah marka ugu horeysa qofka uu geeriyoodo, waxa ugu muhiimsan waa maxay ee laga rabo in meydka ixsaan loo sameeyo. dadka nin baa wuxuu leeyahay aabbahay iyo hooyaday way geeriyoodeen, ixsaanka ugu horreeyaan u sameeyaa waa maxay? ixsaanka horreeyaad u sameysaa waxa weeyaan marka uu geeriyoodo maalkiisa, haddii uu maal leeyahay, horta deynta ka bixi. maalkiisa intaan la dhaxlin waxaa ugu horreeya laga bixiyaa maalkiisa waa maxay? waa in laga kanfo oo laga aaso. marka la aaso ilaa aaskii waxaa ku baxaya shidaal. meelaha qaarkood xabaalaha waa la iibsadaa oo 3 kun oo pound 5 kun oo pound baa la siistaa. marka horta waa in la aasaa kow. mar labaadka marka laga aaso waa in laga kanfaa, waa kow. marka dadkii ku tukan lahaa haddaanay meydka u iman karin, maxaad malaynaysaa? nin baa meel ku dhintay, muslim meeshaa ma joogo, muslimkii meesha ku tukan lahaa ma joogo, waana nin xoolo leh. in dadka ku tukan lahaa tigidh loo wada diro waa waajib, ama waa in isaga meydkiisa la qaadaa oo inta tigidh lacagtiisa laga gooyo meeshii lagu tukan lahaa waa in la geeyaa. in salaadii lagu tukadaa waajib bay tahay. qofkii waa in qof muslim aasaa oo maydhaa oo ku tukadaa. lidaalika ninka gobol dhul gaala joogto ku dhinta ee aan muslim ku tukada haysan iyo muslim aasa toona, xaggee la qabadsiinaya? waa in diyaaro lasoo saaraa oo muslimka loo keenaa, waa lacagtiisii. lidaalika xoolaha uu ka dhinto waxaa looga horeeya in laga aaso kow. waxaa ku xiga number 2 in deynta laga bixiyo. number 3 hadduu dardaarmay xoolihiisa, dardaarankiisu 3 meeloodoo meel lagama badin karo. inuu thuluskii u dardaarmay iyo wixii ka yaraa ee uu dadka u dardaarmay iyo wanaag in lagu sameeyo waa in laga bixiyaa. 3daa qaybood marka laga bixiyo, qaybta afraad baa la dhaxlaa. weliba dadka loo dardaarmayo kuma jiraan kuwa wax dhexlaya. ninku intuu buko hadduu carruurtiisa qaar u dardaarmo idhahdo hebel gurigaa dheeraada hala siiyo, waxba kama jiraan. laa wasiyata lilwaarith. dardaaranka lama geliyo nin wax dhexlaaya, dhaxalkunbuu ka qayb noqonaya. marka qodobka muhiimaddii waxay tahay masaladaas in waxaa ugu horeeya eed waalidka ka bixisay ixsaanku inuu yahay deynta ka bixi. rasuulku madaxuu isqabtay subaxii, nin dhintay isagoo dadka u wacdiyaya. wallahi wuxuu yihi maaratay maada nuzila maaratay alleyla min shidda, alla xalay waxaa la soo dejiyey ee shiddada ahi darana. rasuulku wuxuu yidhi wallahi ninka shahiidkaahi wax walba waa loo dhaafaa oo jannada ayuu galaa ila deynta mooyaane. allahu akbar, deynta mooyaane. xataa shahiidka oo jannada toos u gelaya haddii deyn lagu leeyahay maya, deyn haddii lagu leeyahay waayahay. rasuulku wuxuu leeyahay nafsu lmu'min mucallaqa bideynihi xataa yuqdaa canhu. muuminka deyntiisii baa loo qabsanayaa ilaa laga gudo. arrintaasi waxa weeyaan waa ninka maal ka taga, maalkiina aan iska bixin. amaa qofku haddaanu maalba ka tegin, markuu deynta rabay uu qaatana uu niyo fiican qabay oo ahayd inuu iska gudo, kaa maya. leanna rasuulku wuxuu yihi sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxbi wasalam waman akhadaha, xadiiskii, ninka qaata deynta yuriidu adaa'aha, isagoo doonayay inuu guto oo deyntii iska bixiyo, kadibna geeridii baa kasoo gaadhay wuu bixin kari waayo.
wax maalkiisii lagu bixiyana ma haysto waa faqiir kaa maxaa la yidhi adda allaahu canhu kaa ilaahay baa ka guda lidalika rasuulku markii uu qaniga noqday dowladda islaamku dhalatay wuxuu yidhi nin kasta oo muuminiintu anaa weli u ah ninkii ka taga diyaac iyo dayn ninkii ubad ka taga aanay cidi xanaanayn ahayn iyo dayn fa ilaya maaratay falii wa ilaya anaa leh anaana ka bixinaya leanna baytulmaalka waa inuu qofka muuminka ah maalkiisa hadday agooma yihiin waa in wax laga siiya gaaladan imaka caruuraha agoomaha iyo aabbayaasha aan shaqaynayn wax siinaysa xaggay diintaa ka keeneen sharcigeenay ka qaateen rasuulku wuxuu yihi qof kasta oo dhinta oo agoon ka taga iyo diyaaco ama geeri ka taga ama dayn ka taga oo aan cid lahayn anigaa mas-uulka ah buu rasuulku yihi baytulmaalkaa mas-uulka ah shareecadeenna waxaa la timi dabeedna dadku caqligooda ayay ku garteen waxa wanaagsan ilaa waxa wanaagsan caqligu wuu gartaa waa sababtayn maanta gaalada ugu yaacayno haddaynu inagu islaamkeenna ku dhaqmi lahayn waynu dhergi lahayn waxna inagama xumaadeen laakiin islaamkii baynu ka tagnay qabqablayaal iyo qabiil baynu qiblo iyo diin ka dhignay maaratay cadaaladii baynu ka tagnay waxaynu u baaba-ayno cadaaladii gaalada ee waxoogaaga muslimka ka fahantay iyana dadaalay waa sababtaynu maanta cadaaladoodii u daba fadhiisano teennii iyo diinteenniina aynuga tagnay oo haddana islaam aynuu sheeganayno nacuudu billahi min dalik marka waxaa kaloo ka mid a marka dayntii waa garateen qofka daynta loo qabsanaayo iyo qofka aan daynta loo qabsanaynin labada xadiisba waa kala fahanteen maalin maalmaha ka mid a baa rasuulku saxaabada isagoo la hadlaya ayuu yihi war hebel yaa yaqaana reerkoodiisa yaa ka jooga xadiis sunanka ku yaalla markaasaa nin iyagii ka mida baa isyar qariyo wuxuu yihi wartalo ninka madayn baa loo haystaa maxaa reer hebel laga rabaa markaasaa markii dambe saxaabadii baa yidhi ninkaasaa ka jooga min xagga dama fadhiya markaasaa isagoo go-ii jiidanaya oo nebigii waxoogaa ka yar cabcabsanaya ayuu soo kacay markaasaa wuxuu ihi wax dhibi ma jirto ninkii hebel ahaa dayn baa lagu lahaa qabrigaanuu joogaa jannaduu geli lahaa jannadiina dayn baa looga haystaa deg deg waxaad tirahdaan xoolihii uu ka tegay iyo ehelkiisii war daynta ka bixiya markaasaa la aaday oo dayntii laga bixiyey mar kalena rasuulku nin layidhi ku tuko ayaa wuxuu dareemay in dayn lagu leeyahay markaasaa wuxuu yidhi rasuulku ma dayn baa lagu leeyahay ha anuu ku tukan maayo ku tukada saxaabi la odhan jiray abu qataada ribciya ibni xaarith ayaa yidhi anaa ka bixinaya markaasuu ka bixiyey kadibna rasuulku waa ku tukaday maalin labaad dib weydiiye wuxu uhi ma bixisa mee rasuulka waan bixin doonaa maalintii kale waan bixin doonaa maalin dambe ayuu yihi waan bixiyey markaasaa rasuulku wuxuu ihi al'aana baradat hadday qawowday hadduu ninkii jannada gala ilay dayntii baa maratay markii hore looga haystay allahu akbar marka dayntu waa wax aad iyo aad u khatara marka waxyaabaha keenaya inaynaan daynta qaadan gaaladu daynta waa iska qaataan maraykanka maanta waxaa lagu leeyahay 3 trilyan mise 4 trilyan waxa adduunka carab xoola ay batrool lahaayeen waxa china lacag adduunka lahaa dowladda maraykanka amahatay waxba kama soo noqdaan waxay maanta dhaqaalaha iyo wax walba ku heleen xoolihii adduunka o dhan bay urursadeen lidaalika mar walba waktigii obama waa tii dowladdu lacag beeshay haddana dayntii kafarkii maraykanka dastuurka u ogolaa waa tii la kordhiyey marka mar walba dastuurku daynta u ogolayay dadka ka qaadan karaan baa lasii kordhiyaa halin talaata halin masiid dee cid wax ka qaadi kartaana ma jirto waa nimankaa xooga badan leh hadday doonaan dadka kusoo duulaya nuclearka haysta marka waa burcad weeye marka calaa kulli xaal inaga lanama ogola inaan daynta urursano leanna xaq aanad lahayn inaad cunto oo dadka maarata lidaalika dadka kule waxyaabahan ictiqaadsana waxaa ka mid a maraykan oo kale dadkaa wada leh dowladda maraykanku waa dowladda qura ee dadku wada leeyihiin leanna lacagta ay ku dhisan tahay caalamka oo dhan baa wada leh wa hada huwa alxaq qaaradda ayaan dhowd baa la helay oo nimanka caddaankii waxay ka qaadeen reer indiiskii horta dadka kama xigaan waa kow dadka madow iyo caddaanku mar bay wada tageen dadka cad madow baana loo iibgeeyeyba oo shaqadeed oo dhan qabtay waa kow number 1 maadaama dadka qaaradda maraykanka loo siman yahay xoolaha maraykanku ku dhisan yahay daynta ugu badan ama sarwada adduunku haysto lacagta ugu badan maraykan bay gashay iyagoo dayn u qaatay marka dadku inay yidhaahdaan war xoolahaygii baa meesha galay oo meeshu waa meel aadam iyo ubadkiisu wada leeyihiin oo maxaan ku dhahdaa qaarad cusub oo la helay oo xoolihii khalqiga adduunka oo dhamina uu ku baxay dhididka dadkii madoobaaya kii caddaaye kii eshiyaankuba ku baxay waxaan qabaa maraykan inuu yahay meesha qura la wada leeyahy laakiin qofku markuu tago waa inuu ixsaan iyo wanaag iyo xumaan la-aan ku joogaa waa inuu xumaan la-aan ku joogaa oo aanu maaratay ifsaad iyo qofka muslimka ahi inuu adduunka ifsaadiyo oo sida qaar maanta ayaan dhowtay u k london inagoo joogna mid baa gaadhi iska kaxaystay oo dadkii mirshibiyadiga maraayay dhakada ka wada maray oo gaal iyo islaam ballaayay oo kule maaratay jannaan ku gelaya waxaasi waa ifsaad weeye waa ifsaad weeye nacuudu billah
qofka mufsidka ah ee arlada ifsaadiya in allaha laa yuslixu camal almufsidiin kuwa mufsidiinta ilahay camalkooda ma islaaxiyo ilaahayna dadka wuxuu u abuuray in loo naxariisto oo gacanta la qabto oo la hanuuniyo laakiin in la laayo ilaahay uma abuurin ilahay baa imaka layn laha ilahay xikmadiisday tahay dadka in la laayo hadduu layn lahaa second kan buu layn lahaa gebigoodaba lidaalika ilahay dulqaadkiisa iyo xilmigiisa iyo raxmaddiisa ayaa la rabaa muuminku inuu ku sifoobo sifaadka muuminiintu waa maxay waa sifaadka ilaahay ma gaadhi karo ilaahay laakiin waa inaynu isku daynaa inaynu ilaahay sifaadkiisa qaadano waa sababta qofka muuminka haddaba fiirso loogu dhiiri gelinayo inuu sida xaliim noqdo qof dulqaad baqda noqdo qof sabir la noqdo qof raxmad badan noqdo qof deeqsi a noqdo qof diinta jecel noqdo qof dadka dhibkooda ka xumaada gaal iyo islaamba noqdo naag baqiye ah oo reer bani israa'iil oo dumarka jidhkooda iibiye ah baa intay ceel gashay ey soo dhaamisay eygii waraabisay fa shakara laha min fawqa 7 samaawaat ilaahay uu jannada ku geliyey eygaa ay waraabisay maxaad malaynaysaa adiga marka diinta yaan khalad loo fahmin oo aan diinta lagu dhisin cudwaan iyo been iyo kibir iyo waxaan maaratay ilahiy rasuulkiisana raalli ka ahayn aan ilahay raalli ka ahayn gaalku in loo naxariistaa buu bahanyay nebigu gaalada wuu naxariistay markuu daa'if tegey ee ay dileen nebiga iyo dhiiggiisii ay daadiyeen ee malaku jibriil iyo loo diray malagii buuraha ee la yidhi imaka adaa xor u ah ee malaga buuraha isticmaal ha la halaago maya buu rasuulku yidhi waxaan doonayaa in ilaahay dhabarkooda kasoo saaro man yaquulu laa ilaha illa allah hada huwa diin maaha maaratay dadka in maaratay ama la xado ama la boobo ama waa gaal maaratay xoolahooda lagu dhaco ama ifsaad lagula yimaado ama fisqi iyo xumaan ama iyagaba aad u leexato oo halkaad adigu iyaga ka hanuunin lahayd adigii ay ku hanuuniyaan ila ilahay ba yihi walaa tarkanuu liladiina dalamuu fatamasakum naar ilahay baa yidhi subxana wa tacaala calaa kulli xaal marka arrintaas lama ogola waxaa ka mid a waxyaabaha xaaraanta ah oo meydka lana soo weydiiyo maalin kasta waxaa laysoo weydiiyaa ka waran sheekhow inxaan xoolo u qallo meydkii oo teendho la sameeyo oo dadka laysu keeno oo waxaasoo ahlu bidac weye qofku markuu geeriyoodo in teendhooyin iyo taambugya la dhiso oo habraha laysu keeno oo tusbaxya la urursado oo sidii garoon xuusho dumarku isugu yimaadaan laa yajuus xaaraam weye lama ogola meydka cuntada xataa la samaynayo waa in dadka jaarkii usoo sameeyaan waana in loo duceeyaa bas laakiin meeshii in garoon xuusho laga dhigo oo yoolyool xumada iyo fool xumada maaratay yacnihii lama ogola waxaas maaratay waa bidac weeye in xoola lagu qalana maba la ogolaba rasuulku wuxu uhi maaratay laa cuqra fi lislaam mushrikiintu waagaa hore markuu qofku dhinto geel baa lagu gawrici jiray meesha ay maaratay jinaasada lagu hayo laakiin nebigu wuxuu ku bedelay markii jacfar ibnu abi daalib carruurtiisii uu shahiiday wuxuu yihi isnacu dacaama liaali jacfar fainahu maarata maaratay fa inahum asaabahum maaratay ma yashquluhum aala jacfar cunto u sameeya maxaa yeelay waxaa ku dhacay wax mashquuliyey marka qofka muuminka ah ee geerida ku timaado inaynu xoolahooda cunno aynu iyagiiba daalino oo dadkii dayn iyo masiibo aynu maaratay maaha waa inaynu inagu xogaynaa oo maxaan ku dhahdaa cuntadii loo kariyaa oo maaratay dhibka laga dulqaadaa oo maaratay yani maratay saas baa la doonayaa qofku markuu geeriyoodo waxyaabaha janaaista inta badan dadku ayna soo weydiiyaan waxaa ka mid a qofku markuu geeriyooday naftu ka baxdo waa in indhaha loo celiyaa afka loo celiyaa leanna qofku intuu sii kulul yahay hadduu afka kala hayay afkiisa waa in laysku celiyaa indhaha hadduu kala hayay waa in laysku celiyaa waa in jirhkiisa laysku toosiyaa waa in maarata illa wuu kululaya weli haddii kale hadhow hadduu gacmaha taagayo gacanta hadhow in la jaro mooyaane dee cidigelin kari mayso godkii marka gacmaha waa in gacmaha laysku hagaajiyaa lugaa laysku hagaajiyaa afka laysku hagaajiyaa indhaha laysku hagaajiyaa maarata kadibna waa in lala degdegaa oo maaratay in la diyaariyo waa in la dhaqaa qusligii maaratay waa in la dhaqaa marka la dhaqayo see loo dhaqayaa masaladaasaan kusoo gabagabeynaya see loo dhaqaa meydka waxaa loo dhaqayaa marka ugu horeysa waa loo istijeeyaa sidaynaba aynu maaratay markaynu qubaysanayno u istijoono ayaa duburta iyo farjigii baa laga dhaqaa inta badanna qofku waa inuu xidhaa glovis waa inuu glovis xidhaa maanta glovis baa la helayaa markaad meydka dhaqayso waa inaad gacmaha waxgelisaa ama khirqooyin marya ah oo glovis oo la sameeyey ama waa inaad galof cinjira xidhataa u istijee galoofkaa istijada dabeedna iska saar haddana glovis cusub gasho dabeedna u weysaysee afkiisa u luqluq sanka ka dhaq wejiga u dhaq labada gacmood midigta maaratay bidixda madaxa kadibna caggaa markuu weyse taama aad siiso jirhkiisa waxaad ku bilaabaysaa dhaqid dhinaca midigta ka bilow midigtiisao dhan dhammaystir dhabarka toosi ilaa dhabarka diilinta maaratay biyaha si wacan u madh
haddana dhinaca kale u toosi, bidixda si wacan u dhaq. markaad hal mar dhaqdo waxaad ka dhigi kartaa ragga oo kale ilaa 3 jeer baa wacan, mar iyo 2 iyo 3. haddaanu qofku dhaawac ama xanuun qabin oo dheecaano badan iyo wax ka imanayn 5 baa laga dhigi karaa, 7 baa laga dhigi karaa, ayaa laga dhigi karaa. marka maxaa lagu kanfaa raggii? dumarka waynu arki doonaa. waxaa lagu kanfaa 3 maro ayaa lagu kanfaa. ninka 3 maro ayaa lagu kanfaa. haddii hal maro lagu kanfana way ku filan tahay, way ku filan tahay. maradu inay caddaataa dhib ma laha, waa iska sunne, waa iska sunne. maradu hadday cusub tahay iyo hadday baali tahay waa isku mid. weliba tabaaligaabaa fiican. abubakar tii cusbad intuu ka reebay ayuu yihi taa maaratay cusub ka nool ha isticmaale, taa baaligaa ku kanfa buuri. laakiin dadkeenu ma yaqaano. dumarkuna waa lamid oo iyana dumarkana saasi leeg. maxaa la samaynayaa? iyagu waxay kaga duwan yihiin. marka loo weysayseeyo timaha aad baa loogu dhaqayaa, 3 gees baa laga dhigaya timaha, 3 tidic ayaa laga dhigayaa. 3daa tidic dabeedna dib baa maaratay loogu rableynayaa. dumarka iyana 5 jeer baa 3 jeer baa la maydhaa, ama 5 jeer ama 7 jeer, kolba sidii loogu baahday ku xidhan tahay. walilahi alxamdu. maxaa lagu kanfaa iyagana? ila sidii ragga loo maaratay loo maydhun baa loo dhaqaya. marka loo weysayseeyo midigtaa laga dhaqaa, bidixda marka loo dhamaystiro waa la qalajiya, haddana mar labaad baa la dhaqaa, mar saddexaad. mar walba ragga iyo dumarkaba kaafuur baa ta ugu dambaysa lagu daraa, yani uduga kaafuurka loo yaqaano iyo wixii kale cadar oo dhan, meelaha macaadiftiisa iyo jirhkiisa o dhan marka ugu dambaysa in loo cadriyo oo cadar udgoon, hataa khaasatan cadarkii qofkaasi jeclaa waxba dhibaato kuma sugna, waa loo cadriyaa. dumarka 3 maro ayaa ugu yaraan lagu kanfaa. oo dumarka 3 kanfa maxay noqonaysaa? googarad iyo maxaan ku dhahdaa maro hagooga iyo maaratay diric, 3daasaa lagu kanfaa. iyo 2 lafa iyo 2 lafaafadood, 2 maro oo lagu laalaabo waa 5. haddii maaratay marka 5taa mara dumarka lagu kanfaa, maro xagga hoose oo guntiya, maro xagga diraca oo loo gelinayo sidii diric loo talay, iyo maro xagga sare foodadoo kale looga dhigay, ama shalmad ama maaratay khimaar oo kale looga dhigay, waa 3. kadibna 2 lafaafadood ayaa laga dambaysiiyaa, 2 maro oo maaratay goyaala ayaa laga sarraysiiyaa. intaasaa lagu kanfaa. marka dumarkana saasaa loo kanfaa. dumarkana saasaa loo kanfaa. walilahi alxamdu tabaaraka watacaala. ragga 3 maro ayaa fiican, dumarkana 5 maro ayaa fiican maaratay in lagu kanfo. dumarka haddii hal maro lagu kanfo way ku filanta. ila dadka qaar baan 5 maroba haysane. haddii imanka meel cudur ka dhaco oo kolera ka dhaco oo aan waxbaba lahayn, waxa weyan qofka hal maraa ku filan. raggana hal maraa ku filan, dumarkana hal maraa ku filan. saxaabadii qaar baa qeyd yar inta maaratay madaxa laga saaray, qeyrka dambena laga saaray maaratay laga saaray caws lagu kanfi jiray. marka kolba waa wixii la helo, kolba waa wixii la helo weye, kolba waa wixii la helo. marka salaada janaasada ayaan kusoo gebagabeynaya. salaada janaasada ayaan masaladan kusoo gebagabeynaya. salaada janaasadu waxa weeyaan marka ugu horeysa qofka markaas janaasada lagu tukanayo 4 ragcadood baa lagu tukadaa, 4 jeer baa lagu takbiirsadaa. rukuucna ma leh, sujuudna ma leh. waxaa 2 wadaad baa beri waa la iska kaftamaa. wadaad baasha waxaa la yidhi salaatuljanaasa muu maqlay, marka waxaa la yidhi wuu ilaaway, marka janaasadii buu ku rukuuca. marka rukuucdii iska rukuuciyo dadna janaasadii dhameeyo. waa dambe wadaad kaloo isna magaalada wada joogeen ayaa maalin ciida soomay. maalin ciida, maalinta ciidana soonta waa xaaraan. janaasadana dee laguma rukuuco ee maarata waa la istaagnaadaadun. marka wadaadkii mid baa wuxuu yihi waraadhe maxaad maalinta ciiddaa u soontay? miyaad waalanta? miyaad ogan inay xaaraan tahay maalinta ciiddaa la soomo? wallaahi adaa ii sheegay buu i hadda maantaan ogaaday. lakin haddu miyaad ogeyn buu ihi janaasada in lagu rukuuca inay xaaraan tahay. ha maalin ciidoo la soomaa waxay leedahay buu ihi maalin janaasa oo lagu rukuuco. marka labadiiooda way isfahmeen, mid walba inuu waxoogaa khalday oo dee inuu kakale cilmiga ka barta ay tahay. marka calaa kulli xaal salaada janaasada laguma rukuuco. qofku marka ugu horeysu istaago wuxuu odhanayaa allahu akbar, allahu akbar. faraha salaada loo xidho buu odhanaya allahu akbar. markuu maaratay uu gacmaha saaro qiblada ayuu maaratay qaabilayaa, meydkana hortiisa ayuu dhigayaa. ragga waxaa lagaga tukadaa madaxa, ragga madaxooda ayaa la isku beegaa. markaad tukanayso madaxa ayaa ragga lagaga tukadaa. dumarkana waxaa lagaga tukadaa qaarka dambe si uu maaratay uga qariyo ragga kale dadka kale. marka gabadha qaarki rasuulku miskaheeda iyo qaarkeeda dambe ayuu rasuulku isku beegay markuu dumarka ku tukanayay. raggana muxuu isku beegay madaxooda. ragcadda koowaad maxaa la akriyaa? ragcadda koowaad waxaa la akriyaa faatixada, bismi illahi raxmaan raxiim, alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin. shaydaanka ma la yska naaraa? waa la isku khilaafsan yihi. qofka culimada qaarna waxay leyihin markastoo qur-aan la akriyo shaydanka waa la iska naaraa. culimada qaarna waxay leeyihin salaatuljanaasa kuma soo aroorin. waa masala khilaafiya, dhibaata kuma sugna, ma weyna khilaafkeedu.
marka faatixada la akriyaa kow marka faatixada la akriyo dabeedna ragcaddii koowaad waxaad oranaysaa allahu akbar marka mar labaad in gacmaha la taago allahu akbar la yidhahdo iyo in laabta gacmahooda laiskaga hayo allahu akbar un la yidhahdo labaduba way soo aroortay axaadiista sheekh albani kitaabkiisa aljanaa-is axaadiista uu kusoo arooray ee rasuul ka soo aroortay waxa weeye marka ugu horreysa ayuu rasuulku gacmaha rafcin jiray mar labaadka allahu akbartaa ma rafcin jirin huma laa yacuudu ma soo celin jirin ee gacmuhu ku hayn jiray laakiin saxaabada ibnu cumar iyo maaratay qaar baa maaratay takbiir kasta maxaan ku dhahdaa allahu akbar sare u qaadi jiray marka iyana saxaabada laguma xukumi karo inay bidca samayn jireen oo wuxun baa la aaminsan yahay inay rasuulka ka arkeen oo ficilkaasi uu yahay ficil marfuuc ah oy nebiga u rafcinayaan marka haddaad mar walba rafciso iyo haddaad sidaa albaaniya axaadiista rasuulka ku gaabsato ood maaratay marka ugu horreysa un intaad sidaa tirahdo mar labaadka allahu akbarta dambe aad halkaa laabta iskaga hayso dhibaata kuma sugnaa marka allahu akbarta labaadna maxaa la akriyaa salliga nebiga allahuma salli calaa maxamed wacala ali maxamed kama sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahim wbaarik calaa muxamedin wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiina inaka xamiidun majiid ragcadda saddexaadeedna allahu akbar markaad tiraahdo waxaa loo duceeyaa meydka ayaa loo duceeyaa oo maxaa loogu duceeyaa ducooyinka nabiga soo arooray hadda ducadaa dhegeysta oo xifdiya oo cajiladda ku celceshada rasuulku wuxuu leyahy sal ly slam wuxuu odhan jiray allahuma akfir lixayina markuu meydka u ducaynayo rag iyo dumarba allahuma akfir lixayina ilaahu u dhaaf kuwa yaga nool allahuma akfir lixayina wa meytina wa shaahidana wa qaa'imana wa saqiirana wa kabiirana wa dakarana wa unhaana allahuma man axyaytahu faaxyihu cala alislaam waman tawafaytahu fatawafih cala aliimaan allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinaa bacdahu allahuma akfir lahu waarxamhu wacaafihu wacfu canhu wakrim nuzulahu wawasic mudkhalahu waqsilhu bilmaa'i waalthalji waalbardi wanaqihu min aldunuubi waalkhadaaya kamaa yunqaa thawbu alabyadu min addanas waabdilhu daaran khayran min daarih wa ahlan khayran min ahlih waadkhilhu ljannata waqih fitnata alqabri wa cadaab annaar ducadaa dheer waa 3 duco oo laysu geeyey kolba intaad ka taqaano ayaad ugu ducaynaysaa haddaad wada xifdiyadana waa sax ta ugu horreysa allahuma akfir lanaa ilaahu u dembi dhaaf lixayinaa kaayaga nool waa kow wa mayitinaa kaayaga dhintay wa shaahidanaa kaayaga jooga wa qaa'ibanaa kaayaga maqan wa saqiiranaa kaayaga saqiirkaa wa kabiiranaa kaayaga weyn wa dakaranaa kaayaga lab wa unhaanaa kaayaga dhidig taasi waa ducada koowaad ducada labaad allahuma man axyaytahu ilaahu qofkaad ku noolayso dabadayo qofkaad noolayso allahuma man axyaytahu qofkaad noolaysaad cimri siiso faaxyihu cala alislaam ilahu islaamnimada ku noole waman tawafaytahu ilahu ciddaa dishana fatawafihi cala aliimaan ilahu iimaanka ku oofso allahuma laa taxrimnaa ajrahu ilahu ajarkiisa hanaga xaaraantimayn walaa taftinaa bacdahu qofkan dhintay gadaashiina ilahu hana fidnayn allahuma akfir lahu hadday dumar tahayna allahuma akfir laha baad odhanaysaa ninka maxaad odhanaysaa allahuma akfir lahu gabadhana allahuma akfir laha ilahu u dembi dhaaf warxamhu iyadana warxamha wa caafihi ilahu maaratay cafi wa caafiha wacfu canhu wacfu canha ila damiirka way kala duwan yahin rag iyo dumarka wakrim nuzulahu nusulkiisa hagaaji wakrim nuzulaha wawasic mudkhalahu wawasic mudkhalaha iyadaa la odhanaysaa marta ilahu meesha aad qabriga ka gelisay u waasici waqsilhu ilahu ku dhaq ama waqsilha ilahu ku dhaq bilmaa'i biyo iyo wathalji baraf iyo walbardi qabow wanaqihu ilahu waxaad ka nadiifisaa ama wanaqiha waxaad ka nadiifisaa min adunuubi dunuubti iyo walkhadaaya gefafkii kamaa yunqaa sida loo nadiifiyo athawmu maradii alabyadu caddayd min addanas looga nadiifiyo uskaga wabdilhu ilah waxaad ugu bedeshaa hukan ama wabdilha iyada waxaad ugu bedeshaa daaran daar oo khayran ka khayr badan min daarihi daartiisa oo min daariha daarteeda ka khayr badan wa ahlan ilaahu ehel aakhira ka sii khayran ka khayr badan min ahlihi ehelkiisii aw min ahliha ehelkeeda ka khayr badan wa adkhilhu ilahu waxaad gelisaa hu isaga ama ha iyada maxaan ku dhaha aljannata jannada geli waqih aw waqiha ilaahu ka badbaadi maxaan ku dhaha cadaab alqabriga iyo naar dabeedna takbiirta afraad baad allahu akbar odhanaysaa kadibna waa la tasliimsadaa takbiirta afraad iyo tasliimta dhexdooda haddaad duca u dhexaysiiso dhibaata kuma sugnaa oo tirahdo allahuma laa taxrimna ajrahu walaa taftinaa bacdahu wakfir lana sida imaamu nawowi iyo kitaabu ladkaar iyo ay ku keenaan kitaabu riyaad saalixiinka iyo taasna dhibaata kuma sugnaa
oo calaamatu albani laftiisa xataa takbiirta afraad iyo tasliimta in duca la dhex gelin karo kitaabkiisa janais wuu ku taqriirinaya maaratay in aathaari ay kusoo aroortay dhibaatana kuma sugnaa. halkaa maanta haynoogu joogo. wasala allahuma calaa muxamedin wacala ali muxamed kama sallayta calaa ibraahima wacala ali ibraahima wabaarik calaa muxamedin wacala ali muxamed kama baarakta calaa ibraahima wacala ali ibraahima fi lcaalamiin innaka xamiidun majiid. barta diinta walaalayaal oo diinta ku dadaala. diinta haddaydaan ku dadaalin waxa weeyaan berri baynu ubaahanaynaa. berri baynu diinteena ubaahanayna. diinta ku dadaala oo ducaad noqda oo khayrka xambaara oo khayrka maaratay fidiya oo ilaahay maaratay cumrigaa iyo caafimaadkaa ina siiyey iyo inaynu diinta ka faa'iidaysano yacni nicmada ilaahay aan ka faa'idaysano. muraad baanaan leeyahay. ilaahay muraadkiina maaratay haydin siiyo. muraadkaana iigu soo duceeyo dhammaanteen in qof walba ilaahay muraadkiisa oon macsi lahayn ilahay midigta ka siiyo. wajazakum allahu khayr. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.